kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa Qool Media TV. waxaad ku soo dhawaataan guud ahaanba wararka caalamka. qodobadaad warka ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn xubno ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa qortay inay si qarsoodi ah ugu shaqayn jireen wadamada bariga dhexe. heshiiska ka dhan ah Donald Trump oo ay saraakiisha ugu sareysa militariga Mareykanku goleen intii uu xilka hayay madaxweyne Trump ayaa waqtigan soo shacbaxay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan intii socota xilitabintan wareed. abaanduulaha guud ee ciidamada xoogga Mareykanka General Mark Milley ayaa qaaday tallaabooyin qarsoodi ah oo laga qariyay madaxweynihii hore wadankaasi Mareykanka Donald Trump si aan u adeegsan hubka halista ee nukliyeerka. General Milley ayaa tallaabadan qaaday 12 maalmood kadib markii uu Trump muujiyeen raali ka ah weerar ay taageerayaashiisu ku qaadeen xarunta Koongareeska Mareykanka ee Capitol Hill 6 January si uu u dhimo awoodda Mr. Trump u lahaa inuu amro weerar ciidan. wariyihii Watergate ee Bob Woodward iyo Robert Costa oo labaduba haatan ka howlgala The Washington Post ayaa buuggooda cusub ee Beryl ku sheegay in General Milley uu weerarku ku bilaabmay kadib weerarkii xarunta Koongareeska markaasoo uu yaqiinsaday in Trump uu galay xaaladan fadhin oo dhanka dhimirka, isagoo bilaabay inuu ka qayliyo saraakiisha ciidamada oo uu kala hadlayay lagu sameeyay khiyaano dhanka doorashada oo fara badan. Woodward iyo Costa ayaa sidoo kale buugga waxay ku xuseen in General Milley uu xitaa ka baqay in Mr. Trump uu noqon karo mid qaadi kara tallaabooyin ballan fur ah maadaama aan la saadaalin karin shakhsiyadiisa sida uu CNN baahiyey. wuxuu markaa kulan qarsoodi ah ku qabtay xarunta Pentagonka 8 January si uu dib u eegis ugu sameeyo geedi socodka la maro marka weerar la qaadayo ay ku jirto habraaca adeegsiga nukliyeerka. General Milley ayaa markaa saraakiisha ka mas'uulka waxa loo yaqaan qolka dagaalka ee ku dhex yaala Pentagonka oo sidoo kale ah xarunta taliska ciidan ee qaranka inaanay raacin wax amara oo ay ka yimaadaan Trump iyagoo aan isaga wargelin. waxaa ku qoran buugga Beryl in General Milley uu ku yidhi saraakiisha wax kastoo lagu sheego ku socda habraaca ogaadana habraaca aniga qaybka. waxa uu deeta indhaha mid uga eegay saraakiishii oo uu weydiiyey inay fahmeen hadalkiisa. isla wararka Mareykanka ayaynu ku guda jirnaaye. 3 sarkaal hore uga soo shaqeeyay hay'adda mukhaabaraadka iyo militariga Mareykanka ayaa qortay inay si qarsoodi ah ugu shaqeeyeen dowladda isutaga Imaaraadka Carabta si ay uga caawiyaan in Imaaraadku beegsado kombiyuutarada iyo telefoonada cadowgiisa. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa salaasadii sheegtay in 3 nin ay aqbaleen inay bixiyaan lacag dhan 1 milyan iyo 700 oo kun oo dollarka Mareykanka si loo tuuro dacwado ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda Mareykanka. hay-adda cadaaladda Mareykanka ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi kii ugu horeeyay oo noociisa. eedeysanayaasha kale ah Mark Perry, Ryan Adams iyo Daniel Craig ayaa lagu soo eedeeyay inay maamulayeen hay-ad saldhigeedu yahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta taasoo ka shaqeysa howlgallo lagu jabsado kombiyuutarada iyo telefoonada dadka ka soo horjeeda dowladda Imaaraadka Carabta. kombiyuutarada ay u dhaceen ayaa la sheegay inay yaaleen meelo badan oo dunida oo uu ka mid yahay Mareykanka. 3 sarkaal ayaa lagu eedeeyay inay jebiyeen xeerarka la xiriira macluumaadka iyo jabsashada kombiyuutarada ee dalka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa go'aamisay in 450 askari oo Gabon ah oo nabad ilaalin ah laga saaray Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika sabab la xiriira xadgudubyo galmo sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Gabon. toddobaadyadii la soo dhaafay falal aad u daran oo meelka dhac ku ah anshaxa militariga iyo sharafta ciidamada qalabka sida oo ay geysteen xubno gaar ah oo ka tirsan guutooyinka Gabon ayaa ka dhacay wadanka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay u dirtay wakaaladda wararka AFP. kadib kiisas badan oo kufsi iyo xadgudub galmo isugu jira ayaa la sheegay in baadhitaan lagu wado. qaramada midoobay ayaa maanta go'aansatay inay ka saarto ciidamada Gabon MINUSCA howlgalka qaramada midoobay ee CAR iyo iyadoo galka baadhitaanka ay furtay dowladda Gabon ayaa lagu yidhi bayaanka. mid ka mid ah wadamada ugu saboolsan adduunka, CAR si joogto ah uma xasiloonayn tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay gumaystihii Faransiiska 1960.
waxa uu hadda la ildaran yahay wixii ka dambeeyey iskahorimaadkii sokeeye ee wuxuushnimada ahaa ee ka qarxay dalkaasi sanadkii 2013 kadib afgembigii lagu sameeyey madaxweynihii xilligaas Francois Bozize. MINUSCA waxa UN-ka u dabooshay dalka bishii Abriil 2014 si ay gacan uga geystaan soo afjarinta iskahorimaadka u dhexeeya isbahaysiga SLEC ee kooxaha hubeysan ee afgembiyey Bozize iyo maleeshiyaadka isaga taageera. Colaadda ayaa si aad hoos ugu dhacday, laakiin MINUSCA oo in ka badan 10,000 oo ciidan ah ayaa weli ku sugan dalka inta badan si ay u badbaadiyaan dadka rayidka. Eedeymaha ku saabsan dambiyada galmada ee ku lug leeyihiin ciidamada nabad ilaaliyaasha ayaa soo noqnoqotay, inkastoo cutubyada qaarkood hore looga soo saaray. Ma jiraan wax baadhitaana oo lagu xukumay ilaa maanta, isla marhaantana meel fagaara lagu soo bandhigay. Taliban ayaa heshay lacag dhan 12.3 milyan oo dollar oo ay dhaceen xubno ka tirsanaa dowladii dhacday ee Ashraf Ghani. Taliban ayaa dib u soo ceshatay lacag ka badan 12 milyan oo dollar oo cadaan iyo dahab ah oo ay ka heleen guryo ay degan yihiin mas'uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda, waxayna ku shubtay bangiga dhexe ee Afghanistan sida uu bangigu sheegay. Dagaalyahanada Taliban ayaa ku wareejiyay bangiga 12.3 milyan oo dollar oo laga soo qabtay guryihii mas'uuliyiin ka tirsan dowladii hore ee Ashraf Ghani oo ay ku jirto qayb weyn oo laga helay guriga madaxweyne ku-xigeenka hore Amrullah Saleh, sida uu bangigu sheegay Arbacadii. Lacagta laga helay waxay ka timid saraakiil sarsare iyo tiro ka mid ah hay'adaha amniga qaranka oo guryahooda ku haystay lacag iyo dahab, ayaa lagu yidhi bayaanka. Si kastaba ha ahaatee, weli lama oga ujeedada loo haystay lacagtaasi tirada badan. Dadka reer Afghanistan ayaa lagu booriyey inay u adeegsadaan lacagaha maxalliga, macaamiil iyo ganacsiba. Dhibaatada sarifka lacagaha qalaad ee dalka ku tiirsan gargaarka ayaa halis gelisa taliska Taliban bil kadib markii ay awoodda qabsadeen. Inta badan shaqaalaha dowladda ayaa weli ku soo laaban shaqada, waxayna marar badan mushaharkaan hore loo siin bilooyin, taasoo ka dhigaysa malaayiin qof oo ku loolamaya si ay u helaan nolol maalmeedkooda. Xataa kuwa lacagta ku leh bangiga ayaa la dhibaatoonayaa maadaama laamaha ay xadidayaan bixinada lacagta oo u dhiganta $200 toddobaadkii, iyadoo macaamiishu ay safaf dhaadheer ugu jiraan saacado badan. Inkastoo xawaaladuhu dib uga bilowdeen dalka iyo dibaddaba, macaamiisha sugaya lacagaha xawaaladaha caalamiga sida Western Union iyo MoneyGram ayaa ka cawday Arbacadii in laamihii ay booqdeen ay ka dhammaadeen lacago cadaan ah. Dhammaan dadka reer Afghanistan ee ku jira dowladda iyo ururada aan dowliga ahayn waxaa laga codsanayaa inay Afghanistan u adeegsadaan qandaraasyadooda iyo macmiilkooda dhaqaale, ayuu yidhi bangiga dhexe.